السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دكتور واتنا كسيال كنيدي يا خطبتين ugu weyn maanta waxa ay kala yihiin fariin ka timid madaxweyne farmaajo oo ku socota shacabka Soomaaliyeed. madaxweyne farmaajo iyo Abiy Ahmed oo qadka telefoonka ku wada hadlay fariin dheeraad ah ku maqal doontaan. dhankaasi wararka caalamkana waxa kamid ah ra'iisul wasaaraha UK oo laga helay Coronovirus. madaxweynaha Shiinaha oo ballanqaad caawimaad u sameeyay Mareykanka. magacaygu waa maslaxa nasiib fadlan hadaan u cusub tahay channelkan subscribe noosa si aad ula socoto wararkeena iyo warbixinadeena ugu dambeysay adigoo mahadsan. haatan ku soo dhawaada warkii faahfaahsan. madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed inay mideeyaan cududooda iyo awoodooda una istaagaan siday dalkooda ka samatay bixin lahaayeen duruufaha caafimaad ee caabuqa uu dhaxal siiyay dalal badan oo caalamka. madaxweyne Farmaajo ayaa tilmaamay in shacabka iyo dowladda Soomaaliyeed ay si weyn uga murugoodeen dadka Soomaaliyeed ee qurbaha u geeriyooday cudurkan, isagoo alla caafimaad degdeg u weydiiyay dadka kale ee bukaanka ah. madaxweyne Farmaajo ayaa si gaar ah ugu duceeyay ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Nuur Xasan Nuur Cabdi oo kamid ah dadka kale ee la xanuunsan caabuqa. madaxweyne Farmaajo ayaa ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed in la joogteeyo ilaalinta fayadhowrka ay ugu muhiimsan yihiin dhaqidda gacmaha, yareynta kulan wareedyada iyo fulinta guud ahaan talooyinka caafimaad ee ka hortagga ah. sidoo kale madaxweyne Farmaajo ayaa ku adkeeyay in dadka Soomaaliyeed inay joogaan guryahooda xilli weyn iska saaraan badqabka naftooda iyo bulshadooda. madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa qadka telefoonka ku wada hadlay sida lagu sheegay qoraal bartiisa Twitter uu soo dhigay. Abiy Ahmed labadan hogaamiye ayaa isdhaafsaday xog muhiim ah oo la xiriirta gobolka Geeska Afrika iyo xaaladaha taagan, iyadoo arrintan ay ku saleysan tahay xildhibaano ka hor dowladda federaalka ay shaacisay inay dhexdhexaad ka tahay khilaafka dalalka Masar iyo Itoobiya ee salka ku haya qaybsiga webiga Niil. ra'iisul wasaaraha Itoobiya ayaa sheegay in wadahadalka Farmaajo qayb ka ahaa xiriir uu qadka telefoonka kula sameeyay dhammaan madaxda wadamada ku bihoobay wargalbeedka IGAD, kuwaas oo ay kamid yihiin madaxweynayaasha Djibouti, Kenya, Koonfurta Suudaan, Eritrea iyo Suudaan. ra'iisul wasaaraha Britain Boris Johnson ayaa maanta shaaca ka qaaday inuu ku dhacay caabuqa sidii xoogan ugu faafay dalkaasi iyo guud ahaan caalamka. Boris Johnson ayaa qoraal uu soo saaray ku yiri 24 saac ugu dambeysay waxaan isku arkay astaamaha caabuqa kadibna baaritaan lagu sameeyay waxaa laga helay cudurka. Johnson ayaa noqonaya mas'uulka ugu sarreeya caalamka ee cudurkan laga helo, waxaana la sheegay in xaaladiisa ay tahay mid ay degan tahay. ilaa iyo hadda ma cadda tirada shaqaalaha xafiiska Down Street iyo wasiirada sare ee iska reetiri doono, maadaama qaar badan oo kamid ah xiriir la sameeyay Johnson maalmihii ama toddobaadyadii u dhowaa. dowladda Mareykanka ayaa xaalad adag oo ka dhashay caabuqa xilligan wajahaya, waxaana dalkaasi goboladiisa kala duwan si xad dhaaf ah ugu faafay caabuqa halista badan. madaxweynaha dalka Shiinaha Xi Jinping ayaa maanta qadka telefoonka kula hadlay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ugu baaqay in dowladdiisa ay ka taageeri doonto dagaalka Coronovirus. Xi Jinping ayaa sheegay in madaxweyne Trump in Shiinaha aysan waxba ka qaban karin caabuqa ee dunida ku sii faafaya, sida lagu sheegay qoraal ay baahisay wasaaradda arrimaha dibadda Shiinaha. Trump ayaa qoraal uu soo dhigay Twitter-ka ku sheegay in madaxweynaha Shiinaha ka wada hadleen wax badan oo ku saabsan Coronovirus, wuxuuna xusay in si dhow ay wada shaqayn doonaan Shiinaha maadaama ay wax badan ka fahansan yihiin Coronovirus. taageerada Shiinaha siinaysa Mareykanka ayaa ku soo aadaysa xilli Trump ku eedeeyay Shiinaha inay qarinayaan xogta rasmiga ah ee kiisaska Coronovirus, wuxuuna cudurkaas ku tilmaamay madaxweyne Trump fayraska Shiinaha. daawadayaal intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa wararkeena. warkan warkii intaa kulmi doona waxaan kaga tegaa sidaas iyo amaanaha Allah.